Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Muuqaalkeena maanta waxaan ku baran doonaa laba arrimood. Ciddii taqaana way taqaanaa, balse cidda aan aqoon ayaan rabnaa inaan u faa'iideyno. Waxayna ta koowaadi tahay habka markii YouTube aad samaysatid muuqaal loo soo dhigo. Habka markii YouTube channel aad samaysatid muuqaal loo soo dhigo. Waa midda koowaad. Midda labaadna waxay tahay muuqaalada tirada badan ee aad YouTube-ka soo dhigtay, habkeebaa hal meel la isugu geeyaa, ama kuwa gaara ha ahaadaan ama kulligood ha ahaadaan, si ay taasi u fududeyso dadka janaalkaaga soo booqanaya in saacado badan ay ku daawadaan, iyadoo qasab aysan ku ahayn qofkaasi marba muuqaaladii aad soo dhigtay ka mid ah inuu ku dhufto, balse waa maxay, si automatic ah midkii koowaad markuu daawado ka labaad inuu ugu gudbo, kii labaad markuu dhammaado ka saddexaad uu gudbo, taasoo kuu keenaysa in saacado tiro badan hal qof uu kuu daawado isagoo juhdina aanan gelin. Marka labada arrimood baan ku baran doonaa muuqaalkeenan maanta, hadduu ilaahay raalli ka ahaado. Waxaanse ku hormarayaa midda koowaad oo ah habkeebaa channelka YouTube-kaaga ah muuqaal loo soo dhigaa. YouTube-kaan ku dhufanayaa, waxaana isticmaalayaa taleefanka waxaana u isticmaalay badankiin. Waxaa laga yaabaa telefoon inaad isticmaalaysaan oo laptop iyo desktop iyo inaad isticmaalayn, saa daraadeed ba waxaan u isticmaalaynaa waxaa la yidhaahdo allahu mustacaan mobileka. Hagaag, markaad fiirisid marka halakan meesha hoose eeg home, shorts, plus, subscription iyo you baa ku qoran. Marka barta dhexe ee balasku ay ku qoran tahay ayaad ku dhufanaysaa. Halkan markuu ku keeno waa video, waa muuqaal weyn markii aad rabtid inaad soo dhigtid. Midda saddexaad waxay tahay waa markii aad rabtid live inaad aadid live, markii aad rabtid inaad duubtid. Midda afraadna waxay tahay markii aad rabtid in aad post ama faalo inaad YouTube-ka soo dhigtid. Waxaan ka soo qaadaynaa marka hadda inaan rabno in aan video kooban aan ahayn inaan soo dhigayno. Taleefankaaga gudihiisiibuu ku tusayaa marka. Taleefankaaga gudihiisa markii uu ku tuso ayaa muuqaalkii aad rabtay inaad soo dhigato ayaad ka dhex dooranaysaa meeshan. Waad ka dhex dooranaysaa midkii aad rabtay baad ku dhufanaysaa marka. Kanoo kale aan ku dhuftay. Markaan ku dhufto halkaanuu i keenayaa. Kadib maxaa samaynaysaa? Next ayaad leedahay. Next markaad tiraahdid halkan ayuu ku keenayaa. Halkan markuu ku keeno create a title, waa ciwaankii aad u samayn lahayd muuqaalkaaga. Waa aragtay YouTube-ka markii muuqaalo lasoo dhigo laba arrimood baa ugu muhiimsan. Midi waa maxay? Waa sawirka ka turjumaya muuqaalkan waxa uu ka hadlayo. Midda labaadna waa iyadoo Soomaali ama English inaad hoos kaga qortid, waa muuqaal ku saabsan saa iyo wixii aad ku qori lahayd. Marka waa maxay? Faalo yaroo kooban baad markaa rabtid inaad muuqaalka u samaysid meeshii aad ku qori lahayd. Marka waa halkan. Waxaan ku qoriyaa marka tusaale ahaan habka muuqaal loo soo dhigo YouTube-ka baan iri. waa halku dhegii muxuu ahaayey muuqaalkaaga. Kadib show more baa ku dhufanaysaa. Qaybihii dambe kuu soo saarayaa. Marka ta koowaad waa public, waa markii aad rabtid muuqaalkaaga dadkoo dhan inay arkaan. Markii aad rabtid adig keligaa inaad ka dhigatid ama unlist aad tirahdo liskaba laga saaro, fantaxdan yar baad ku dhufanaysaa. Kadibna saddexdan aa kuu soo baxaya: unlist, privacy ama private iyo public. Marka badanaa waxaad dooranaysaa public. wuuna noo dooran yahay hadda, iyadii baan dooranay. Marka calaamadan fantaxda ayaa marada uga laabanaysaa. Hagaag, ta labaad waxay tahay no, it's not made for kids. Anaa horey u doortay, adi laakiin waxaa laga yaabaa in uu labadan midkood kuu soo saaray yes ama no. Badanaa marka ta hoosaa la doortaa, oo ta koowaad maxaa loo dooran waaya? Ta koowaad waxay sheegaysaa muuqaalkan aad soo dhigaysid inuu caruurta keliya ku saabsan yahay. Markastoo aad tirahdid muuqaalka aan soo dhigayo caruurta ku saabsan yahay, waxaa laga jaraa waa haddii shuruudihii caruurnimada uu muxuu ahay kulansadee commentiska ama faallooyinka qaybta hoose ee faallooyinka dadku ay ka soo galaan ee lagaga hadlay lagaga soo qoro baa laga jaraa. Marka sidaas inta badanaa waxaa la isticmaalaa ta hoose. Yeesta marka ha dooran, ta hoose dooro. Ta hoose si muuqaalkaagii commentina looga bixin karo, qofkiina uu daawan karo baa la sameeyaa. Iyadii baan dooranay, waan kasii tagnay marka.
midda saddexaad waa ad description. waxaan waa iska kamaaliyaad ama waa iska waxyaalo dheeraada marka muhiim ma aha. inta priority-ga ama lagama maarmaanka ah ee qasabka ay tahay markii muuqaal aad soo dhigaysid inaad u samaysid ayaan ka dooranaynaa. locationka oo kale dadka qaar way doortaan, waa meesha aad joogtay marka muhiimkuma aha. halkan markaad maraysid marka playlistigan markii uu kuu samaysan yahay ayaa playlistigii aad rabtay muuqaalkan inuu liiskooda galo ayaad ka dooranaysaa. see uga dooranaysaa marka? plus baan leeyahay, kadib u fiirso ani waxa ii soo baxay waxaan dhan playlistiya hore aan u sameeyey weeye. marka muuqaalkii hadda aad soo dhigaysay playlistiyadan kii uu ka quseeyo ee isku wax ay ka hadlayaan ayaad ka dooranaysaa. tusaale marka waxaan idhi kaba soo qaad all videos ama qisooyinka xulka ah, qisooyin buu ku saabsan yahay muuqaalka, kaba soo qaad isagaan tig leeyahay kadibna dhan baan leeyahay. saas oo kale ayaad muuqaalkan playlistyada meesha kuugu jira midka uu isku barnaamij ay ka hadlayaan si liiskooda uu galo ayaad ka dooranaysaa. kadibna uu kuu soo daro waa kana uu kuu soo saaro wuxuu qisooyinka xulka ah ayaa videoga hadda aan soo dhigi doono uu muxuu ahaayey liiskooda galay. sii soco, paid promotion kuma qusaysa, ka soco. collaborationkan isagu sanadkana lagu soo daray. waxaa weeye marka aad rabtid muuqaalka aad soo dhigaysay inaad tiraahdid qof baa ila diyaariyey. mar kalaan ka hadlaynaa, waxoogaa wuu yaro dheer yahay marka isaga hadda maadaama uusan ujeedka asaga ahayn waan ka tegaynaa. altrade content iyo tags iyaduna waa muhiim, waad ku dhufanaysaa. markaa ku dhufatay altradeka koraan kusii dhufanayaa. markaan ku dhufto wuxuu ku leeyahay muuqaalkaaga ma wax AI lagu sameeyaa ku jira. haddii uu ku jiro yes baad leedahay, haddii uusan ku jirinna no baad leedahay. kadib fantaxdii baad laabanaysaa, dib baad laabanaysaa, wuu kuu dooray, waa sii laabanaysaa, haddana wakaas halkaana ka soconaysaa. shaqadii koowaad ayaad dhammaysay, muuqaalkaagiina waa diyaarsan yahay. halakan marka hal shay oo muhiim ah ayaa la rabaa inaad samaysid marka intaan aad samaysid, oo waa maxay? thumbnail waxa la yidhahda. thumbnail computerkaa si fiican looga arki lahaa, laakiin halkanna waan ku sharxaynaa. thumbnailku waa maxay? waa sawirka muuqaal kasta ka soo horeeya ee youtube-ka markaad geshid sawirka kasoo muuqanaya muuqaalka ee markaa ku dhufatid qarsoomaya, thumbnail baa la dhahaa. marka thumbnailkaas wuxuu ka turjumayaa muuqaalkan meesha ku jira wixii uu ka hadlayay. adiga marka aad rabtid sawir diyaarsan oo ka hadlaya muuqaalka gaar baa loo sameeya, photoshop baa lagu sameeya, waa shaqo kale. markaad soo diyaarsatay seebaa usoo gelinaysaa? waxaad usoo gelinaysaa halkaa kore waxaa qalinka u eg ayaa ku dhufanaysaa. mar kale aan ku celiyo, waxaa qalinka u eg ee kore ee sawirkan guud korkiisa ah ee bidixda ah ayaa ku dhufanaysaa. markaa ku dhufatid moobeelkaaga qaybihii sawirada ahaa ayuu automatic kuu geynayaa. kadibna intaan oo sawiro kii aad rabtid ayaad kaga dhufanaysaa. tusaale kanaan kaga dhuftay marka anugu kanaan kaga dhuftay, kadib halkaan uu keenaya, wuu tusayaa, waa kana edit thumbnail, soo ma jeedaan? kadibna dhan baan leeyahay, waa kaasaa sawirkaas iisoo kor saaraya. markuu iisoo kor saaro muuqaalkaygii moobeelka aan ka soo dhigayay youtube-kayga intii ugu muhiimsanayd waan sameeyey. waxaan hadda samaynayaa marka in aan muxuu ahaayey soo upload gareeyo. marka inta aanan soo upload garin oo aanan soo dhigin youtube-ka, hal arin oo kale oo taleefonka uusan ku tusayn oo mobile markii kombiyuutarada la isticmaalaya laga arko ayaan idiin sheegaya. lagana yaabo qaarkiin haddii taleefanadiinu ay kuwa casriga yihiin inaad ka dhex aragtaan. oo waa maxay? marka qaar waxaa dhacda muuqaal baad youtube-ka ka daawanaysay, muuqaalkiisaa u daawanaysaa, markuu sii dhammaanayo 5 ilbiriqsi uu dhimay ama 10 ilbiriqsi ayaa muuqaalkii geesihiisa waxaa ka soo baxaya muuqaalo kale. marka qaybtaasna way jirtaa, laakiin aad muhiim uma aha. laakiin mararka qaarkoodna waa lagu darsadaa si qofku markii muuqaalkii adiga uu kaa daawanayay uu sii dhammaanayo, muuqaaladan kale intay u soo baxaan midkii uu ka jeclaado uu kaga sii doorto. waa wax aad muhiim u ah ma aha, laakiin dadka qaar way doortaan. dadka qaar way necab yihiinoo muuqaalkii oo weli u dhammaan buu kusoo baxa. dadka qaarna way necab yihiin, dadka qaarna way jecel yihiin. laakiin adigu markii aad rabtid inaad si gaara u baratid waxaad ku baran doontaa insha allahu tacaala, ama adaa isbari doona ama youtube-ka haddaad geshid waad arkaysaa habka loo sameeyo. marka waa too easy weeye, aad bay u fududahay. iyadaana way jirtaa, laakiin hadda taleefonka muusa noo soo bandhigin. waxaa kaloo intaas ah oo iyadana oo moobeelku uusan ku tusaynin markii aad muuqaal soo dhigaysid in muuqaalkan lagu qabsaday. markii lagu qabsado kadib buu kuu soo sheegi doonaa dhibaatayna kugu tahay. kombiyuutarka markaad isticmaalaysid marka wuxuu ku tusayaa muuqaalku inta uu socdo
in muuqaalkan dad ay leeyihiin waxa aad soo dhigtay, ama music ha ahaado, ama muuqaalka laftigiisa ha ahaado, ama codka ha ahaado. waayo dadka qaar waxay sameeyaan markay muuqaalada soo dhigayaan, waana arrin aad muhiim u ah, in ay music ama nashiidooyin muxuu ahaaye muruga ah ama qiiro ah in ay soo kor saaraan. war muxuu ahaayey codadka noocaas ah ama nashiidooyinka noocaas ah ama musiga noocaas ah, dad baa lacag ka sameeya. marka inaad iska qaadatid cidina raalli kama noqonayso. marka taasi maxay keenaysaa muuqaal dhan oo aad soo diyaarisay oo 7 saac 8 saac 5 saac 4 saac aad waqti ah aad gelisay ood ku soo rafaaday, in music yar oo aad saaratay lagaga bologo ama copyright strike lagaga dhigo, kanaalkii lagaga xiro. marka dhibkaas oo dhan saad u gelin weliga allah waxaad iska ilaalisaa nashiidooyin iyo music iyo waxaasoo dhan muuqaaladaada inaad ku soo dartid. iska ilaali, waa taladayda waayo dad baa iskale waxaan oo waqti kusoo bixiyey. marka bilaash inaad uga qaadatid raalli kaaga noqon mayaan. marka copyrightka markii uu kuu sheegayo muuqaalkan aad soo dhigaysid dad inay iska leeyihiin, mobilka markaad ka soo dhigaysid kuuma sheegayo. waa teleefanada normally la isticmaalo, iphone-ka ma garan karo, laakiin mobiladan androidka la yiraahdo allahumma mustacaan samsung-ka ah badanaa ma soo qoro. laakiin computerka laptopka markaad isticmaalaysid wuu kuu soo qoraya, wuxuu ku leeyahay muuqaalkan aad soo dhigtay waa lagugu qabsaday. wuxuu kuu soo qorayaa muuqaalkan aad adiga soo qaadatay wixii lagaga qabsaday, muuqaalka originaalka ah ee waa hore lasoo dhigay, ee magacii loo bixiyey, ciddii iska lahaa, kanaalkay taalay, waxaasoo dhan intii biriqsiyood ee lagu qabsaday, waxaasoo dhan buu ku tusayaa oo markaa kusii dhufatid. marka mobilku somehow ma soo bandhigayo. marka aad buuna muhiim u yahay qodobkaasi, waayo waxay keeni kartaa in muuqaalkii lagu qabsaday inaad ka warhayn oo dhowr muuqaal markaad soo dhigtid hadhowtid kanaalkiiba lagaa xiro. marka qodobadaasna mobilka markii muuqaal aad ka soo dhigaysid ma uu ku tusaya, laakiin waxaa la rabaa xisaabta inaad kusii darsatid. guud ahaan markii aan rabnay muuqaal inaan youtube-ka soo dhigno, imahaasa ugu muhiimsan. waxaan u gudbi doonaa insha allahu tacaala oo muuqaalka saddexaad ah, habkeebaa playlistiga loo sameeyaa. aad baad u mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.